ciidanka BSF waxay maanta howlgal ku tageen magaalada Ceeldaahir iyo deegaanada ku heeran ee gobolka Bari. Howlgalka ayaa qayb ka ahaa howlgallada joogtada ah ee ciidanka BSF ay ku adkeynayaan nabadgelyada deegaanada Puntland, looguna xoojinayo iskaashiga shacabka iyo ciidamada amniga si looga hortago dhagarta kooxaha cadowga ah. Sidoo kale ciidanka BSF intii howlgalka ku joogeen deegaanadaasi waxay isku xog waraysi la qaateen saraakiisha amniga Ceeldaahir, odayaasha iyo waxgaradka. ciidanka BSF iyagoo ka jawaabaya codsiga uga yimi shacabka iyo bahda caafimaadka Ceeldaahir ayaa waxaa deeq dawo ah oo kala duwan ku wareejiyeen xarunta daryeelka dhallaanka iyo hooyada ee magaalada Ceeldaahir. odayaasha saragno booliiska saragno gudoomiyaha degmada saragno waxaan idinku nimi laba qodob. qodobka koowaad inaan xaaladda amni ee magaalada ka jidha inaan ogaano aad nooga warbixisaan, aynu ka wada hadallo iska kaashanna amniga guud. aad baan idin soo hambeeyay weynaa maanta maadam meeshu waa deegaankeeni waa Ceeldaahir alaga waa rusii dhalaanka caruurta wax badan bay u baahan meel badan oo geesaan oo kale wala socdo aweyka tantaan waa daawayteed oo xaqiiqda la yaqaan meesha yimaadaan markay sawir soo hambeeyayna waa la soo dhaweynaa hadda dib oo maanta laga qoofo aan meel waxba ka soo taagan ma ogin لكن الصومالي أو نمبر جودها سيسكت وسومالي يعني صومالي سكتنا العقبات ما رتي دلوقتي يسكت وسومالي واحد ده يبنتي ما نقولين حتى ولا شغلتها في أربعة منها ومثل وين ولا شغل ولا أحسن هذا الباب كتير waxaa ku jira iikeen faleebayaal, waxaa ku jira irbado oo tayada weeye oo isugu jira noocyo badan. idinkaa kala arki doona dhaqaatiir oo yaqaana. sidaas darteed laga bilaabo saacadda waxaan ku wareejinay magaalada Ceeldaahir inaad nagala wareegteen waa hadlaysaa idinku sidaas aye إلهي بقى معاد إسكاله عانو دوار كلمة لماركة ودولة إنها فلان إن شاء الله تعالى واحد رجينا يعني دولة نقول أديك الدولة سيدي نظام عافنا بشوية تكونون magaalada Ceeldaahir iyo dhammaan nawaaxigeeda inta kale oo waxweeyaan adeega caafimaadka ka faa'iideysta insha Allah. ciidanka BSF waxay u taagan yihiin mar walba sugidda amniga iyo ka warqabka shacabkooda.